xaruntan waxaa maalgelisay shirkadda Kimis shirkadda la yiraahdo magacayga saddexan waxaa la yiraahdaa Dr. Maxamuud Cabbaas Khalid waxaan ka howlgalaa xaruntan magaceedu yahay Narura Medical Center oo ku taala xaafad kamid ah xaafadaha magaalada Hargeysa maalgelintii ay ii samaysay shirkaddan ka microfinance kolley meel la maalgeliyay email aan la maalgelinin isku mid ma noqonayaan waxa jirta in markay maalgelisay ilaa iminka in علشان xarunteedan caafimaadka ama maalgelinta ii samaysay wax badan ay iska bedeleen oo علشان income-kii marka ama iyo iminka farqi weyn u dhaxeeyo ilaa 3-4 qofood oo ila shaqeeya Cabdirasaaq oo ah pharmacologist waxaan ahay dadka ka faa'iideystay ma aragtay oo shaqo helay ma aragtay laftiisa shaqo helay kadib markii ma aragtay centerkan ay maalgelisay shirkaddan Kimis oranayo aad baan ugu faraxsanahay runtii kobcinta ma aragtay ay kobcinayaan businesska ay kobcinayaan centerada medicalka especially aad baan ma aragtay ugu faraxsanahay because of shaqadan hay ama hawshan nimka ay iyada la'aanteed ma socon lahayn taa macnaheedu maaha in ay kaligaygun ay wax ii qabatay because of bulshadan oo dhan ee loo shaqeynayo ay wax u qabteen because of health service inta ugu badan bay ii dhamaystireen wax alla علشان wixii material medicalki ku saabsan ama materialskan u baahnaa waan ka dhamaystirtay marka sidaa darteed from the time aan ka qaatay investment up to now waxaa jira investment isbedel aad u weyn oo علشان anigu naftayda iyo familkayga iyo dadka iyo bulshada meesha ku xidhnayd caafimaad ay dareemayaan dhalinyarada creative-ka ama fikradaha haya ee bilaa camalka ee wadanka jooga qof walba shuruudaha ka soo bixi karayo in la maalgeliyo oo si walba sidii suitable ama si walba sidii ku habboon loo maalgeliyo